عادة إنه هنشتي شيء وكشرو وكان ولورا كفرانا أيضا قرآن وإنه أخريو من كم عدينا مكا كسلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصدق الله العظيم لا هي نوافع أيضا القرآن الكريم أرض من أخري الوقت هو كون درت هذا الكوس كسر كوبينا وحان هذا الكسر وين يا وان رباين وكلمة اللي يلاحظوا الشيخ جمال أحمد دعالي فليتفضل كسر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد runtii hawshan aynu isugu nimi dowlad wadaalaysanahay inteena soconaysay iyo runtii inteena hore u joogtay hawshan kolley midaynu dabada ka wadnay muddada dabada aynu ka wadnayna waxa weeyaan mar baa runtu meel bay joogtay runtii hadda waxay moodinayaan gabagabadii ay soo gaadhay marka insha allahu axmed jaamac oo maxaa ka yimi dalka Switzerland oo ujeedada u yimi ay ahayd dhalinyaradan aan diyaarinay ee aqoonta ah ee gabdhaha iyo inamada ka kooban ee intii maxay ahayd oo hadda ka kooban magaalada joogtay laakiin intii tuulooyinka ku maqnayd iyo intii baadiyaha ku maqnayd baa aan joogin intii magaalada oo keliya ay ahayd bal hadda arrintooda maxay ahayd inuu sii arko ayaa maxay ahayd ujeedadiisu ay ahayd runtii dhammaantan isugu yimid waxa weeyaan muhiimadda u ogaad oo maanta halkan aynu ka ahayn ardaydii inuu sawirka sii qaato iyo maxay ahayd waalidiintiina sii arko wixii aanu diyaarinay iyo hawshii aynu qabanayna maxay ahayd runtii laynala arko intaas haddii ay dhamaato insha allah kulley waxaad ka wada warhaysaan maxay ahayd waalidiinta dad ka mida in maxay ahayd laga saxeexay diina laga saxeexay qof walbana waxa weeyaan warka waynu haynaa inaga waxba naguma kala qarsoonayn yirkadeeda waxa maanta aynu keliya waxay tahay jaamac maadaama uu yahay ka mid yahay warbajoogta axmed jaamac warbajoogta hawsha doonaysa inay kafaalo qaadato uu ka mid yahay inuu nala arko dadkii aynu sawiradooda iyo magacyadooda maxay ahayd aynu hore ugu diray in uu arko isaguna maxay ahayd sawir uu kasii qaato indhihiisana uu ku arko dabadeedna waxa weeyaan maxay ahayd sidaa haddii ilaahay karta uu ku ambabaxo marka waxa weeyaan hawshan kulankan maanta waxaynu u qabanay axmed ayaynu maxay ahayd u qabanay jaaca football insha allahu tacaala haddana waxa weeyaan maxay ahayd hawshu waqtigu iska kooban yahay inta anigu aan doonayay inaan idin sheego maxay ahayd waalidiinta haddaad tihiin ama waalidiinta aynu nahay insha allah intaasu may ahayd laakiin wixii maxay ahayd waladii u socdayba waxa weeyaan axmed baa ina siin doona insha allahu tacaala hawsha maxay ahayd sawirkii iyo wixii la doonayna waxa weeyaan iyadana waa dhamaystiri doonaa hada wabillahi tawfiiq sala allahu alay wasalam. السلام عليكم سيدي ليديشا إلي مقعد وحوية أحمد شعب فوتبول horta maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan ku imi aan tolkaygii dhex imi aan magaaladii asalkaygu ka soo jeeday sida isoo gaadhay horta sawiradii iyo magacyadii carruurta waan helay arrintana waxay bilaabmatay sanadkan bilowgiisii qurbajoogtii iyo tolkeennii baa isu yimi waxay yidhahdeen maxaynu dalkeennii iyo tolkeennii u qabanaa marka fikraddii ugu horeysan isla gartay waxay ahayd horta dalkii agoon badan baa joogta marka hore agoonta laga bilaabo marka agoonta la gacan qabto oo wax loo sameeyo oo baahidooda la kafaalo qaado kadib baynu waxyaabaha kale u gudbiyey sidaa darteed ayaa waxaa la yidhi bal aan isku dayno haddaba inaan xarun weyn oo agoonta lagu hayo aan u samayno oo
oo xarunta ay ku helayaan waxbarasho caafimaad iyo meel ay seexdaan hoy ay seexdaan sidaa darteed arrintu waanu kala qaadnay mar haddii agoon badani ay joogto waxaa la yidhi arrintaynu sii bilowno oo wixii hadda liidataha lasii kafaal qaado oo dad tolka ka mid ah oo inaga ah qofkii agoon kafaalo qaadanaya in la raadiyo si qof walba uu hal agoon ama laba agoon ama saddex agoon hadda siday gabartiisu tahay ugu kafaalo qaado sidaa darteed baan isku raacnay 25 agoon aan ku bilowno oo hawsha ay sii bilaabato aniga shaqadaydu waxa weeyaan inaan raadiyo sidii lagu samayn lahaa xarunta lagu dhisi lahaa xarunta oo dawladda waddankan jooga dawladda iyo hay-adahaas aan ugu raadin lahaa sidaad ogtihiin sawirro keligii waxba ma tarayaan naloo soo diray marka waxay inaan imaado aan idhaahdo agoontu waan la kulmay meeshii la yimaado carruurtii sawir laga qaado oo la yidhaahdo dadkii waddankaasay ku nool yihiin magaaladaasay ku nool yihiin waa kuwana dadkii baahidoodii noqotaa si hadhow wax insha allah kulli anagu waanu dadaalaynaa dadaalkuna naguma yara ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dadaalkana la gacan qabto waayo wixii loo socdaa waxa weeya wax fiican in agoonta la caawiyo hadhow agoonta marka la caawiyo ku guulaysano insha allah in xaruntaa la sameeyana waxyaabihii kale arrimaha bulshada ka caawinaya in agoonteeda la galo ama dhinaca caafimaadka ama dhinaca waxbarashada marka runtii mar labaad aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta idinla joogo waanu ku mahadsantihiin soo dhaweynta ay soo dhaweysteen aadna waxaan ugu mahad celinayaa shaqadii wanaagsanayd iyo dadaalkii ay sameeyeen xubnaha sagal Somali community halkan jooga iyo isxilqaameen siiba Kayse Cabdi Cali Qodax iyo Jamaal Axmed Ducaale dad badan oo kalena way la shaqeeyeen waan aaminsanahay laakiin labada magacooda hay badana waa labada nin marka insha allah hawshu way noo soconaysaa wax kasta oo aanu qabanno ama xagga aan ka helno waa idinla soo socodsiinaya oo waad la soconaysiin marka waa mahadsantihiin وهسيها أحمد جامع لا يكتساس حوشة خيرجة وصف حاجة بسوقان وحن هذا هذا تشود وينيا لما كنا كم إذا هو يوينكا ويبوه الرئيسو كين صالح لقول هذا وسيد لو تراهو لو تلو مناسبات تصابسن ciyaalkayga ayaga agoontaa noogu yimi inay wax nagala qabtaan inay caafimaadka noogu dhisaan inay waxbarashada noogu dhisaan in badan baanu sugaynay anana waxaana waaba naga raageen hadday noo soo degdegeen dee waan ku hambalyeynayna السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حويان سلامة الإسلام عليكم السلام سلامة التبعدي أروح كلمة أدركتان ما أنت لو قربت شوفتي هذا ما تقول بعضي إن يقول بسان iskuullo malcaamado mid walba hambaliyaan idin leenahay hambaliyo tol jira aabayaal kale de carruurtu male waxay leeyihiin carruurtu kii uu shaqeynayay ee inamadeenii ka mid ah ayuunbaa de u aabba ah hadday tahay dhakhtar hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho waxa weeyaan idinka unba u aabba idinkaana u maqan sidaa idin isu xil saarteenna de ilaahay idinka waajib mariyo waxaanu idin leenahay idinkana ku guulaysta kuwaa u geynaysaan intiina isu tegaysa iyo intiina idinla abaabulaysa allah idinka ajarsiiyo agoonta intaa iyo inka badan way naga maqantay tuulooyinkeenii maynu tegin hadda waa hahaabad inta tan intaanu ku keenay ee qoraalka inamada ugu jiray dabadeetana waxa weeyaan dee intii ka badnaydna way naga maqan tahay sidii carruurtii loo ururin lahaa
oo dhakhtarkii loogu samayn lahaa oo haddii aan laba guuraya dee heerkii ilmihii aabihii u nooliyey loo gaadhsiin lahaa ayay idinka baahan yihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. عامر إسماعيل شعبان. هذا إن شاء الله. طبعا عليه هيدي بعيد وإحنا قعدت يروح وإحنا كنا وباهنا وطلع وباهنا ما بقى نعرفهم أو حماش عطينا أقام وكبي ما كان الحمد لله رب العالمين شكرا بالولينا سلم خير إن شاء الله. آمين إن شاء الله. آمين إن شاء الله. كهذا كبدين. هذا أدوية دي يا واحد رايح حرب هذا اللي هو كفر يعني كده حرب هذا اللي هو يجي ولا غاصب يا هذه عايز اعيدها انا وضع ها علنك سيدة كوس عليا سيدة كوس عليا